Wasiirka Ciyaaraha Somaliland Cali Siciid Reegal ayaa sheegay in wasaaradda ahaan ay u qorsheysan tahay siyaasad cusub oo lagu maamulayo nidaamka ciyaaraha Somaliland. ciyaaraha iyo Olombikada iyo wax walba xeer baa loo sameeyay insha Allah lagu maamulo iyo policy iyo siyaasad lagu maamulo say doonto baa kala horeysay ayaa loo sameeyay hadii lahayd. Olombikada way dhisan yihiin guddiga xidhiidhada way dhisan yihiin kulligood wada dhisan yihiin waa shaqeeyaan. wasiirka oo kulan wax laga weydiinayay mas'uuliyadiisa maanta la yeeshay guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ayaa kulankaasi kadib TV-ga kalsan warbixin ka siiyay qodobada laga wada hadlay kulankaasi xog waran ayaan ka siiyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland xog warankii aan ka siiyay runtii wax weeyaan si fiican baan isula qaadanay waxaan una go'aansanay maadaama ay yihiin guddigii hoosaadkii arrimaha bulshada ee golaha baarlamaanka waxaan xukunno iyo wasaaraddeeduna ay tahay wasaaradii bulshada dhalinyaro iyo dadka aan xukumanaba uu yahay dadkii bulshada ahaa inaanu iska kaashano iyaguna waxay nagala qaban karaan aan la qabanno annaguna marba waxaan uga baahano inay nala qabtaan aan soo bandhigno runtiina si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiican aanana waan ugu waranay Gesta kale gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada xildhibaan Xasan Cawaala Caynaan ayaa sheegay in guddi ahaan uu wasiirku warbixin ka siiyay wada shaqaynta ka dhaxaysa dhalinyarada. Warbixin ballaaran oo fiican oo qurux badan ayuu na siiyay wixii su'aalaana waan ka weydiinay wuxuu nooga warramay markaasi qaabka dhalinyarada la xidhiidhan waxa kale oo nooga warramay qaabka ciyaaraha iyo hawlaha uu kaga jiro iyo horumarka ay ka gaarsiiyeen garoomada ay dhiseen ciyaaraha sida ay u qabanayaan waxyaabahaas oo dhan ayuu nooga warramay. wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Somaliland ayaa horaantii sanadkan si ku meel gaar ah u magacowday 7 xubnood oo mas'uul ka ah ciyaaraha Olombikada Somaliland. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.